حديث كان سديد صدنات عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال وحير سمعت حامق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسوأ لهاي إن الله إله سبحانه وتعالى لا ينزع مسيب ومقاضه العلم علمك بعد أن أعطاكموه مركو إذن سي كذب إله سبحانه وتعالى علمك إذن كمسيبه أما إذن كمقاضه مركو إذن سي كذب انتزاعا سيبت وإذن كسيباي يعني قف با علم لبري دين با لبري وددالي إله سبحانه وتعالى انتو إماده قف كاس علمك كمسيباي وهي ظلم أي نقونيسو قف كان ددال صوبحيي وكسو ددالي وصور فاضي علمك يسلقا مسيباي sidaas ayuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam in allaha ilaahi subxaanahu watacaala laa yanzicu ma siibo alcilma cilmiga bacda an actaakumuuhu markuu idin siiyey kadib ilaahi subxaanahu watacaala intizaacan siibid walaakin hase ahaatee yantazichu wuu siibaaya allah subxaanahu watacaala cilmiga ayuu siibayaa minhum dadka xaggooda ayuu ka qaadayaa maca qabdi alculamaa'i ayadoo culamada lala qaaday oo lala qabanayo بعلمهم ما علمهم علمغودنا أي وتان oo laabtooda uu ku jira yani nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahi subxaanahu watacaala cilmigan qalbigiina kama siibayo laakiin ilaahi subxaanahu watacaala cilmigan markuu qaadayo markuu rabo inuu siibo culimadii ayaa la qabanaya culimadii ayaa la oofsanaya culimadii ayaa geeriyoonaysa qofka caalimka markuu dhinto uu geeriyoodo cilmigiisina uu la geeriyoonaya marka ilaahi subxaanahu watacaala cilmigan laabtiina kama siibayo laakiin wuxuu qabanayaa culimadii ayaa halhal loo qaadaya culimadii ayaa geeriyoonaysa markay culimada ay geeriyooto cilmigeena wuu baxayaa meesha ayuu ku dhammaanayaa fayabqaa waxaa haraya markaas naasun dad oo juhaalan oo jaahiliin ah yustaftawna markaasaa wax la weydiinayaa fatwo ayaa la weydiinayaa fayaftuuna markaasay fatwoonayaan oo su-aasha ay ka jawaabayaan bira'yihim ra'yigooda sida ayaga la tahay ay ugu jawaabayaan fayadiluuna markaasay lumayaan oo jidkii toosan ay ka lumayaan wayudiluuna dadkiina way lumanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidkan ilaahi subxaanahu watacaala cilmiga qalbigiina kama saarayo markuu idin siiye kadib laakiin culimmada ayuu qaadayaa culimmadii markii la qaado iyo cilmigooda la oofsado waxaa soo haray dad wada jaahiliin ah dadkii jaahiliinta markii wax la weydiinay ra'yigooda ay kaga jawaabayaan markaas ayagana way lumayaan dadkana way lumanayaan marka wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegayaa qofka cilmi inuu ku dadaalo culimmada uu ka qaato uu ka faa'iidaysto intii dad jaahiliin isku soo haro lahaayeen culimmada hadda joogto in laga faa'iidaysto wey